بسم الله الرحمن الرحيم وعنو وناكسن داود يا لدينا هانتي بميلو الباقي جوكتان كنا سو دوادا وركي سومالي نيوز 724 وهالكا إذا كا آخرين دونانيكو إسماعيل علي آجاي وهابين لمو سبتيا تاريخ دينو كو أستيسن تاهي سغالي لباتنكا بشا أغسطو لبادا كوني لباتنكا قضبادا أدوركينا تكو دابد دونتانا وحا كميدا حلقا أحمد مدوبي إيداني أي إيمان أيان مقدشو إيو هالكا أي ديجي دونان وحد كلا دوركينا تكو دابد دونتان قولاها أمانكا وصو ساري قرار كسابسن سوماليا فرينا أدري dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada warkeen ayaad ku daawad doontaan waxaad kala warkeen aad ku daawad doontaan filla Soomaaliya oo sheegtay in dabagal iyo baaris lagu hayo mas'uuliyiin dabaqyo dhistay warkeen ayaad ku daawad doontaan waxaad kala warkeen aad ku daawan doontaan ciidamada wasiir janan oo loogu baaqay inay isku soo dhiibaan dawladda federaalka Soomaaliya akhbaaraadka kale aan warkeen aad ku daawad doontaan waxa kamid ah Turkiga iyo NATO oo ka wada hadlay murankii ka dhex taagnaa qodobadaas iyo qodobo kale ay qarinaya ayaad warkeen ku daawad doontaan asxaabay u diyaar garooba fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe dheh gambaleelka taabo sino shargalay si asxaabtaada kale ay u gaarto wararka iyo macluumaadka aan soo gelino channelkan warkii oo dhan daawadayaal iminkan aan idiin soo qabto qodobka ugu horeeya aad warkeena aad ku daawad doontaan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland Siciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa la filayaa in maalinta Axadda ee birri ah ay safar ku yimaadaan magaalada Muqdisho oo ay kula kulmi doonaan madaxweyne Farmaajo labada dhinac ayaa yeelanaya shir la filayo in heshiis looga gaaro doorashada dalka kadib Dani iyo Axmed Madoobe ay diideen qodobadii heshiiska Dhuusamareeb 3 oo dhigayay in dalka laga qabto doorasho dadban oo la mid ah tii 2016 balse la balaariyay ka qaybgalayaasha wararkii ugu dambeeyay ee soo gaaraya ayaa sheegaya wafuud ka kala socota Puntland iyo Jubbaland oo hordhac u ah labada madaxweyne ay soo gaareen magaalada Muqdisho dhinaca kale xog aan helnay ayaa sheegaysa in labada madaxweyne ay digi doonaan madaxtooyada iyo agagaarkeeda madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa la filayaa in uu dego madaxtooyada halka Dani uu digi doono guri gaar ah oo u dhow madaxtooyada in madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe dego madaxtooyada ayaa ah arrin weyn maadaama la og yahay khilaafkii iyo xiisadda horay u dhex martay isaga iyo madaxweyne Farmaajo hase yeeshee arrintan ayaa looga gol leeyahay inay abuurto kalsooni siyaasadeed iyo is-aaminaad dhex marta madaxweyne Farmaajo iyo madaxda Jubbaland iyo Puntland oo horay xiriirkooda u xumaa dhanka kale ilo wareedyo ayaa sheegaya in madaxweynaha Puntland uu degi doono guri gaar ah oo u dhow filla Soomaaliya Dani ayaa la sheegay inuu diiday inuu dego gudaha garoonka diyaaradaha Muqdisho oo markii hore la hadal hayay Dani oo ku dhashay degmada Holwadaag ee magaalada Muqdishona hore u joogi jiray isagoo wasiir iyo xildhibaan ah ayaa la sheegay inuu goostay in aanu garoonka diyaaradaha degin uu magaalada gudaheeda dego si aan loogu arkin ajnabi dalka booqanaya oo kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si aqlabiyad leh u ansixiyay qaraarka 2540 kaasi oo muddo sanad ah u kordhiyay muddo xileedka xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM kaasi oo lagu aasaasay qaraarkii 2158 isla qaraarkan ayaa golaha ammaanka waxa uu ku sheegay inuu soo dhaweynayo kulamadii dhawaan dhex maray dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah waxaana uu adkeeyay inay muhiim tahay wada shaqayn buuxda oo dhex marta wuxuu golaha xusayaa mas'uuliyadda dhammaan dhinacyadan ka saaran horumarinta wada shaqayntooda iyo wada hadalladii ay dawladda federaalka hogaaminaysay ee Dhuusamareeb wuxuuna hoosta ka xariiqay muhiimadda wada shaqaynta iyo heshiis laga gaaro arrimaha muhiimka u ah qaranka ayaa lagu yiri qoraalka arrimahaas waxaa ka mid ah fulinta qorshaha amniga qaranka heshiiska nidaamka cadaaladda federaalka qaybsiga awoodda iyo kheyraadka dib u eegista dastuurka iyo qorsheynta qabashada doorashooyinka qaranka golaha ammaanka ayaa mar kale ku celiyay inay muhiim tahay siyaasadda loo dhan yahay iyo doorashooyin dimuqraadi ah oo Soomaaliya laga qabto si ay taasi u xaqiijiso amniga iyo xasiloonida muddada fog ee Soomaaliya dawladda federaalka ah ayaa leh mas'uuliyadda koowaad ee ah ka dhabeynta waxyaabaha ay Soomaaliya
hiigsanayso iyadoo si dhow ula shaqaynaysa dowlad goboleedyada ayaa lagu yiri qoraalka. golaha ammaanka ayaa ugu dambayn sheegay inay dib u eegis joogto ah ku hayn doono xaaladda Soomaaliya isla markaana isbedel ku samayn karo qaar ka mid ah qodobada ku jira qaraarkan iyo qaraaradii hore haddii loo baahdo. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa sheegay in filla Soomaaliya ay wado baaris iyo dabagal lagu hayo mas'uuliyiin xilal ka haya dowladda federaalka oo musuqmaasuq lagu tuhmayo. Cabdinuur ayaa tilmaamay in mas'uuliyiinta qaar oo uusan carabaabin in lagu tuhmayo inay lunsadeen hantida shacabka. sidoo kale wuxuu intaasi ku daray dabaqyada ka taagan Muqdisho qaarkood ay dhisteen shakhsiyaad shaqo hoose ka haya dowladda balse dabagal lagu hayo sida uu hadalka u dhigay. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in arrintaas dabagal aan lagu samayn karin haddii aan la helin xeerka saxaafadda ee doodda laga keenay. dabaqyada magaalada ka taagan qaarkood waxaa macquul ah inuu dhistay qof shaqo hoose ka haya dowladda ama ay wax ku leeyihiin mas'uuliyiin hore halka kuwa kalena lagu tuhmayo hantida shacabka ka dhisteen dhismooyinka dabaqyada. haddii aan xeerka saxaafadda la helin dabagal laguma samayn karo ayuu yidhi agaasime Cabdinuur. hadalkan ayaa ku soo aadaya ayadoo toddobaadkii lasoo dhaafay 2 goor oo kala duwan ay maxkamadda gobolka Banaadir xukunno adag ay ku riday shakhsiyaad iyo mas'uuliyiin ka dowladda federaalka Soomaaliya oo lagu helay inay sameeyeen musuqmaasuq. iminkana Gedo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo ahna madaxa siyaasadda ee gobolkaasi mudane Cismaan Nuux Xaaji Macalimu oo la hadlay warbaahinta ayaa ugu baaqay ciidamada uu hogaaminayo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Janan inay isku soo dhiibaan kuwa dowladda ee ku sugan beled Xawo. Macalimu ayaa sheegay in ciidamada Jubbaland ay dib ugu soo noqon karaan deegaanka haddii aysan wax dhibaato ah wadin isla markaana ay dhigaan hubka. sidoo kale waxa uu tilmaamay inay soo dhoweyn doonaan haddii ay ku soo biiraan ciidamada xoogga ee dagaalka uga saaray magaaladaasi. askari qaran haddii aad tahay xoogga dalka ahaw booliis ahaw ayuu yidhi Cismaan Nuur Xaaji Macalimu. ciidamada xoogga dalka ayaa beled Xawo la wareegay 2 bishii Maaj ee sanadkan kadib dagaal ay la galeen ciidamada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. tan iyo markaasi labada ciidan ayaa dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda ka waday duleedka degmadaasi. iminkana akhbaaraadka caalamka. madaxweyne Erdogan iyo madaxda ururka NATO oo ka wada hadlay khilaafka xooggan ee u dhaxeeya Giriiga iyo Turkiga. madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa wada hadal dhinaca telefoonka ah oo ku muranka u dhaxeeya Turkiga iyo Giriiga waxa uu la qaatay madaxda ururka NATO waxaana uu Turkigu u sheegay inuusan dalkiisu doonin ka shaqaynta dhibaatooyin hor leh. Master Jane ayaa Turkiga u sheegay in labada dal inay si wada jir ah isaga kaashadaan arrintan muranka dhalisay isla markaana ay ka wada shaqeeyaan degalaanshaha gobolka iyo tanbadda Mediterranean-ka. waxaana warkan lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada Turkiga. warkii aad ka daawanayseen Somali News 724 daawadayaal waa naga intaasi wararka iyo muuqaalada channelkan aan soo gelino ku soo gaaro subscribe dheh gambaleelka taabo sina share garay si asxaabtaada kale u gaarto.